kulanti wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. qodobada wararkan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah dawladda Soomaaliya oo amartay taliska Amnisoon iyo Axmed Madoobe oo qatar wajahaya, Shariif Xasan oo saami weyn ku yeeshay bangi caan ah, gudoomiyihii hore maxkamadda sare ee Soomaaliya oo dalab codsi ah u diray Somaliland oo war cusub ka soo saartay dagaalkii Kornel Caaray oo ku soo qaaday, guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka Soomaaliya oo caawa su'aalo ka weydiiyay qaraxii loo haysta Qatar, guddiga qaraxii xarunta gobolka Banaadir oo soo saaray go'aano 5 qodob ka kooban, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye oo ku sugan magaalada Dawxa isbitaalka lagu dabiibayo dhaawacyadii ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladii caafimaadka ee gudoomiye Riisow. intaana waxay ahaayeen qodobada wararkana ugu door karoon imankana u diyaar garooba iyagoo dhameystiran. markale daawadayaal isku soo naqad haboon fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar gambalkana furo si uu ku soo gaaro wararkii u dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. aan ku horeyno dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wada talaabooyinkii ugu dambeeyay ay ku aadan doorashooyinka maamulka Jubbaland waxaana saacadii la soo dhaafay ay qaatay go'aano adag. qaranjoog news ayaa ogaatay in dawladda federaalka Soomaaliya ay la kulantay taliska ugu sarreeya ciidamada Amnisoon ayna ka dalbatay in ay amarka ay bixiso dawladda ay ka dhaqan galo Kismaayo iyo guud ahaan Jubbaland. fulinta amarkaasi laga rabo ciidamada Amnisoon ayaa dawladda Soomaaliya iyo Amnisoon ka dalbatay in ammaanka Kismaayo ay la wareegaan ciidamo Ethiopian ah lagana wareejiyo ciidamada maamulka Jubbaland iyadoo sheegtay in ay musharaxiinta wajahayaan qataro badan oo dhanka ammaanka ah. sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa qorsheynayso in maalmahani soo socdo ay Kismaayo gaaraan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo musharaxiinta ka walacsan ammaankooda, sidaas darteedna laga baahan yahay ciidamada Amnisoon in ay sugaan oo ay la wareegaan ammaanka Jubbaland. taliska Amnisoon ayaa bilaabay kulamo ay la qaadanayaan madaxda iyo hay'adaha ammaanka isla markaana ay ku wargelinayaan in ammaanka ay ku wareejiyaan ciidamada Amnisoon. waxaana socdo kulamo arintaasi ay ku saabsan. maamulka Jubbaland ayaa maalmo ka hor soo saaray go'aano deegaankaasi maamulkaasi lagu mamnuucayo mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya inta ay Jubbaland ka jirto marxaladda doorashada iyo waqti kala guurka Jubbaland. wargeyska Indian Ocean oo qoray isbedelada waaweyn ee dhanka maamulka saamiga uu ka dhacay bangiga Salaama African Bank ee dalka Djibouti. warbixintan wargeyskaasi ayaa lagu sheegay in afhayeenkii hore ee baarlamaanka Soomaaliya ahaana madaxweynihii hore maamulkaasi Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo noqday qofkii labaad ee saamiga ugu badan ee bangiga. Shariif Xasan ayaa ku xiga saamilaha ugu weyn ee bangigaasi oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Axmed Cali oo ah madaxa shirkadda Rayaan ee warbixinta sidii ay ku qortay. wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in ay suurtagal tahay Shariif Xasan in uu dhawaanba ku biiro guddigaasi maamulkaasi bangiga. sidoo kale ay ka mid yihiin Maxamed Axmed Cali iyo Cusmaan Ducaale Dirir. xiriir aan la sameynay Shariif Xasan ayaa waxa ay noo suurtagal weyday in aan ka helno jawaab. Shariif Xasan oo ka dagay xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed bishii November sanadkii 2008 kadib dagaal siyaasadeed oo adag uu la galay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu arag saaxadda siyaasadda goobaha dadweynaha tan iyo markaasi. gudoomiyihii hore maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Iida Suleymaan ayaa codsi u diray xukuumadda Somaliland uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi. Ibraahim Iidle ayaa ciidamada booliiska Somaliland ka codsaday in ay baaris lagu sameeyo dilka toogashada ah ee ka dhacay degmada Ceel Afweyn. mudane Iidle ayaa sheegay in dilkaasi loo geystay wiil uu adeer u yahay oo lagu magacaabo jiray Roble Mahdi Iidle. Ibraahim ayaa xukuumadda Biixi ka dalbaday in cadaaladda la horgeeyo cidii ka dambeysay dilka loo geystay wiilka uu adeerka u yahay. waxaana uu yiri waxaan ka codsanaynaa booliiska Somaliland in ay baaris rasmi ah ku sameeyaan toogashada shalay ka dhacday ee lagu geystay Roble Mahdi Iidle taasi oo ka dhacday magaalada Ceel Afweyn isla markaana cadaaladda la horgeeyo cidii ka dambeysay ayuu yiri Ibraahim Iidle. xukuumadda Somaliland ayaa mar kale ka hadashay dagaalkii ka dhacay deegaankaasi Karin ee degmada Ergaabo gobolka Sanaag. dagaalkan ayaa waxa uu dhaxeeyay ciidamada jabhadda hogaamiyo Kornel Caaray iyo ciidamada Somaliland ee ku sugan deegaankaasi.
maxamed axmed caalim oo ah gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Ceergaabo ayaa waxa uu ka warbixiyay dagaalkaasi isagoo sheegay in ciidamada Somaliland uusan qasaaro badan soo gaadhin waxaana uu yiri waxa dhacay ciidanka qaranka Somaliland ayaa gaadhay ciidanka oo watay caaray oo ku soo dhawaaday wadada laga galo daalo ciidanku nasiib wanaag iyagoo oo aan waxba ku dhiman laba gaari ayaa caaray laga qabtay isaga iyo saddex gawaarina waxay ku yaaceen buurta gudaheeda si nabadgelyo ah odayaashii looga daba diray mar waliba xagga nabadgelyada ayaan ka marinaa qofka nagama goono hawshaasi si wanaagsan ayay u socotaa waana soo gabagabeysaa wuxuu intaasi ku daray wax khasaare ah oo dhacay inaan dhaawac baajiro oo faniinka xabadaha ku dhacay dhagaxaanta galgalay wax kale oo dhibaato ah kama aysan dhicin meeshaas guddiga arrimaha dibadda golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Mudane Ahmed Ciise Cawad guddigani ayaa wasiirka su'aalo ka weydiiyay shaqooyinkii wasaaradda shaqooyinka la xiriirta arrimaha dibadda ee Soomaaliya eedeyntii loo jeediyay dowladda Qatar ee la xiriirta qaraxyadii ka dhacay magaalada Boosaaso warbixinta uu daawacay wargeyska The New York Times ayaa cod uu helay wargeyskaasi uu ku wada sheekaysanaya taleefanka waxaa laga maqlay ganacsada Khalifa Kayd Al-Mahnadi iyo safiirka Soomaaliya Qatar u fadhiyo Xasan bin Hamza Hashim oo ku dhahayo waan ogahay cidda ka dambaysa qaraxyada iyo dilalka Al-Mahnadi ayaa sheegay in qaraxyadani loo fuliyay si loo qabsado Imaaraadka Carabta in ay ka cararaan Boosaaso wasiir Cawad oo hore u sheegay in dowladda Qatar ay sharaxaad ka bixisay eedeyntaasi loo jeediyay isla markaana ay si buuxda u beenisay taasi oo dowladda Soomaaliya ay ku qanacday gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka Xildhibaan Cabduqaadir Cusable Cali ayaa kulanka shir gudoominayay ayaa ka warbixiyay qodobadii kulankaasi ay kaga wada hadleen wasiirka arrimaha dibadda guddiga gurmadka qaraxii gobolka Banaadir oo warbixin hordhac soo saaray guddigani 14kii bishii uu magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qatar oo u magacaabay maareyntii qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir si gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa dhaawacyadii ka dhashay qaraxii ayaa bulshada Soomaaliyeed la wadaagay warbixin hordhac ah oo ku saabsan waxyaabihii u qabsoomay labadii maalmood ee la soo dhaafay warbixinta howlaha u qabsoomay guddigan ayaa sidaan u qorneed b maareynta dhaawaca waxaa la xaqiijiyay in hadda dhimashadu ay gaarayso 10 qofood dhaawacuna uu gaarayo 9 ruux oo ku jiro gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaa la helay liiska dhaawacyada xaaladoodii aad u liidato ee u baahan daryeel caafimadeed ee dibadda ah oo xamali karo safarada dibadda ah ee gaarayo 6 qofood 3 waxaa sidoo kale looga faa'iideystay fursadda imaanshaha diyaaradii dhaawacyadii shacabka kale ee caafimaadkoodii dalka wax loogu qaban waayay kuwaas oo wax ku noqday Kismaayo Muqdisho Boosaaso sidaas darteedna isku geynbu waxa ay loo qaaday 12 qofood oo dhaawac waxaana isla habeenkii loo sameeyay baasabooro ay ku safraan dhaawacyadii loo qaaday iyo dadkii la safrayay ee aan lahayn baasaboorada dhimashada tirada dhimashada la xaqiijiyay waa 10 waxaa la qorsheeyay sidii loo heli lahaa xiriirka ehlada dadkii geeriyooday lala wadaagay lagana tashtay tacsida qorshaha iyo goobta salaada iyo duugta 3 Allahu naxariiste waxaa lagu aasay 9 ka mid ah dadkii geeriyooday goobtii la qorsheeyay gabagabo inkasto oo qaybtii hore ee gurmadka degdega ah ee guddigana ay soo dhamaatay haddana warbixinta waxay gudbinaysaa madaxda sare dalka waxaan kula talinaynaa in hay'adaha ammaanka ay si degdeg ah ay u soo gudbiyaan natiijada baaritaankii lagu soo ogaanayay sidii wax u dhaceen 2 in lala xisaabtamo ciddii lagu helo in ay qayb ka ahayd shirqoolkii ama ay ka gaabisay mas'uuliyadeedii saarneed 3 in kulan duco ah loo sameeyo mas'uuliyiintii ku shahiiday qaraxa 4 in meel lagu ogaado xaasaska iyo caruurtii ay ka tageen shuhadadii 5 in guud ahaanba la kordhiyo diyaar garowga dalal ahaaneed ee xaaladda noocan oo kala ah loogana sameeyo qorshe dhameystiran oo isku jira ka hortag iyo la tacaalid intaba guddiga ayaa ugu dambeyntii u mahadceliyay dalka Qatar oo degdeg ah ugu gurmaday soo fidiyay dhaawacyadii qaraxyadii waxaana uu sidoo kale guddigani u mahadceliyay madaxda ugu sareyso dalka sida madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyagoo saacad ula socday howlaha guddigani
laguna fududeeyay sidii ay hawshooda u gudan lahaayeen. wasiirka dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye oo ku sugan magaalada Dawxa isbitaalka lagu dabiibayo dhaawacyadii ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladda caafimadeed ee Gudoomiye Yarisow. wasiirka ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee Gudoomiye Yarisow ay tahay mid ka fiican sidii hore uu ahaa markii la soo qaaday magaalada Muqdisho. Khadiijo ayaa rajo wanaagsan ka muujisay xaaladda gudoomiyaha waxaana ay sheegtay in uu soo roonaanayo Gudoomiye Yarisow oo xilligaani dhaqaatiirtu ay sheegeen in ay wanaagsan yahay. waxa ay sidoo kale sheegtay in dhaawacyadii kale ay ku jiraan kuwa liita isla markaana intoodii badan ay dhaqaatiirtu ka muujiyeen rajo wanaagsan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhaawac daran ka soo gaaray qaraxii la bagsaday xarunta maamulka gobolka Banaadir sida ay xog gaar ah ay ku heshay Qaranjoog News. dhaawaca soo gaaray gudoomiyaha ayaa u badan fiiro ka galay qaybaha sare ee jirka waxaana dibka ugu weyn ee hadda ku hayo hal firir oo aan wali laga saarin. dad la joogo ayaa Qaranjoog News u sheegay in gudoomiye Yarisow uu firirka ugu daran ugu jiro madaxa lana doonayo in maalmaha soo aadan qaliin lagu sameeyo doono sida uu dhaqaatiirtu xaqiijiyeen. sidoo kale firir kale oo halista ah ayaa waxaa laga soo saaray caloosha intii uu ku sugnaa magaalada Muqdisho. haddii lagu guuleysto qaliinkani sida la filayo waxa xaaladiisu ay ku noqon doontaa mid caadi ah waxaana ka hari doono xanuunka badan oo hadda wajahayo sida ay qabaan dhaqaatiirtu dalka Qatar. isbitaalka ugu weyn ee dalka Qatar ayaa lagu daaweynayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Injineer Abdulrahmaan Cumar Cusmaan Yarisow waxaana hadda la sheegayaa in uu si tartiib ah u soo laabanayo ogaalkiisa. dhaqaatiirta dalka Qatar ayaa dalbaday in la suuxiyo gudoomiyaha si uu u nasto isla markaana uu maskaxdiisa uga guuraan dhammaanba xasuustii qaraxii ay arrimaha siyaasiga kadibna la doonayo in qaliin lagu sameeyo. maalintii shalay ayay ahayd waxaa soo gaaray qoyskiisa oo ay ka mid ahayn xaaskiisa iyo carruurtiisa oo dalka UK kuwaas oo dalbaday in ay la kulmaan ka hor inta qaliinka adag lagu sameynin. waxaan noogu idlaaday wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya warwarka lamida intaan ku wada kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. fadlan haddii channelkan aad ku cusub tahay subscribe saar gabalkana furo si ku soo gaaro wararkii ugu dambeeyay umuraha Soomaaliya iyo caalamka ee aan soo dhigno. mahadsanid.